kulantii waxaana wanaagsan daawadaasha qiimiga qadarinta mudan oo ilaahanta meel ka soo joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkaad uga barateen inuu idinka soo baabartay magaalada Toronto. magacaygu waa Maxamed Daahir Xasan. daawadayaal waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. waxaan idin leenahay Ramadaan Kariim meel ka soo joogtaanba. dabcan jawaabtu waxay noqonaysaa Allahu Akram. waa tahay bishii barakeysnayd ee Ramadaan ayaan ku jirnaa. waxaana loo baahan yahay in la isxasuusiyo sanad walba waqti la gaaro hadeer oo kale si dadku loo xusuusiyo alla ka cabsi iyo gudashada waajibaadka bisha barakeysan ee Ramadaan. bismillahir rahmaanir rahiim. anigoo ka faa'iideysanahay jaaniskan ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan waxaa idin leeyahay Soomaali iyo ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan Ramadaan mubaarak kulli caam bi anti khayr insha Allah. ramadaankan ramadaankiisa Ilaahay nagu gaarsiyo anigoo caafimaad qabno oo Soomaaliya isku duuban oo wadankiina oo nabad oo fiican oo noqdo insha Allah. ramadaankan waa bil barakeysan oo la wada sugaayo. Ilaahay subhanahu qadir bishaas waa bishi oo quraankiisa oo ku sheegay waaye insha Allah. hana loo diyaar garoobo hana la iska ilaaliyo waxyaabaha xun oo ramadaanka burinayo. waa idin la dardaarma Soomaali meel walba ay joogaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. محمد داهر وسلامتي waxaan sheegay muslimiinta idil oo adduunka dhan ku wada nool waxaan leeyahay Ramadaan Kariim kulli caam wa anta biqeer. marka waxaan leenahay meel kasto maartii waxaan farxad weyn ay noo tahay bishaan Ramadaanka ay nagu soo food saran tahay. ilaahay waxaan ka rajeynaa sanadkan sanadkiis ilaahay inuu na gaarsiiyo aan leenahay aamiin insha Allah. muslimiinta waxaan leenahay hambalyo guul ayaan idin rajeynaa bisha Ramadaan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bismillahir rahmaanir rahiim. waxaan leenahay muslimiinta iyo Soomaalida inta afka Soomaalida ku hadasho dhan Ramadaan Kariim aan idin leenahay. waxaan idin sheegayaa wax yar waagi asxaabaha Ramadaanka waxaa la yiri 6 bilood oo hore intaan Ramadaanka la gaarin waxay isu diyaari jireen Ramadaanka 6 bil ka hor. Ramadaankana marka uu dhamaado 6 bilood oo dambe waxay dhigi jireen Ilaahayow naga aqbal ayay ku duceysan jireen. marka waxaan idinka codsanayaa insha Allah waxyaabaha xun in laga dhaqaaqo loo soo jeesto cibaadada Ilaahayna inuu soonka in aqbalo. Ramadaanka ramadaankiisa insha Allah Soomaaliya oo nabad ah dhulkii oo nabad ah qulubtoo nadiif ah Ilaahay sukeen keeno. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعيها أذن وعيتنا يا ليلي دقيق وانسومية أمبا وارد قشا وان حلوقت إلى تونسو قبل إلى موس سنة وقرب سيسري إلى سبتين سفرات مولدين ممكن مولدين ويلقى يمكن أو كاسل إلى بقوتلو حتى أكتب بها المنطقة القيانة ay had jeer u soo bandhigaan dadka inay soo bandhigaan qoortooda iyo bulshada oo isku daya inay maalgeliyaasha khibraadka dhibaatooyinka dadka ka jeediyaan isla markaasna ay baraan kubadda koleyga. haddaba ku soo dhawaada barnaamijkaas ayaan idin haynaa. ugu horreyn waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo macallin Cismaan Bruno oo isagu ah madaxa tababarada ama macallinka guud ee Ilaamos mudane ku soo dhaweeyo barnaamijka. sidoo kale Ali Muudey waxa uu ka tirsan yahay ururka Today ee sportiga. Today waxa lagu yaqaanaa inay qabtaan barnaamijyo badan oo ciyaaro joogto ah oo kala duwan. waxaana kamid ah barnaamijka loo yaqaan Somali Week oo sanad walba mar la qabto bisha July ee soo socotana lagu qaban doono magaalada Toronto. Ali Muudey waxa uu gacan ka geysanayay ama had jeer gacan ka geystaa lana shaqeeya macallimiinta Ilaamos. Ali ku soo dhawo barnaamijka. sidoo kale Axmed Abuukar waa Axmed Deybi runtii waxa la oran karaa waa laf dhabarka Ilaamos. shaqo badan buu ka qabtaa tababar joogteyn ah isku xirka waalidiinta iyo macallimiinta iyo ardada iyo dhalinyarada. Axmed Deybi ku soo dhawo barnaamijka ayaan ku leeyahay. macallin Cismaan muddo dheer baad soo wadeen barnaamijkan. Sebteembartii hore ayaad bilowdeen haddana waxa la soo gaaray xilligii xagaaga oo fasaxa la qaadanayay. muddo badan wax badan oo aad qabateen maxaad ka oran lahayd barnaamijka maanta aad soo gabagabayseen? bismillahir rahmaanir rahiim. محمد داهر markii hore waa ku salaamay iyo muuqaalka TV-ga aad baad u mahadsantahay sida sharafta leh aad maartii aad fursadan qaaliga aad nasisay
maanta waxaan kuu sheegaa maanta waa maalintii ugu dambeysay caruurtii aan September aan sanadkii hore iyo sanadkan maartay ay ku soo xirnay waxayna tahay maanta waa maalinta aan nahay oo ciyaarahan oo kubadda koleyga oo ciyaartooy aan da'dooda ilaa 17 sano ilaa ay qaarna ay 18 ilaa inta badan waa 17 sano intaas ayaan haynay muddo maartay sida aan in sheegnay September ilaa hadeertan marka waxaan rajaynayaa sanadka dambe maartay inaan isku wada keeno oo ayna u furno in da'daasina sidaas aan ku sii wadno marka waxaan ku sheegaynaa ciyaartooydan waa ciyaartooy aad u fiican oo meel wada ka wada yimid dhalinyaradan waxaan ugu talagalnay inaan maartay waxyaabaha maartay oo aan fiicneen inaan ka celino oo iyo waxbarashadoodana aan ku dadaalno iyo wixii tala ah aan sano waalidiintana waa markii hore kala hadalnay maxamed abukar maxaad ku daraysaa inta uu yiri macallin Bruno shaqada aad qabateen iyo gabagabada barnaamijka aad soo gabagabayseen safaro badan baad gashaan Mareykanka aadaan Ottawa aadaan ubadkaad ka xaysaan maxaad ka oran lahayd bismillaahir rahmaanir rahiim maxamed daahir waa ku salaame insha Allah ilaahay ma hadle maanta kulankii ugu dambeeyay aan ciyaarihii oo soo jiray sanadkii ciyaalkii practice-kii aan inta ku siinayni magaalada Toronto oo caawa aan ku soo gabagabeynay wallahi su'aasha ay weydiisay hadaan u soo laabto maxamed daahir kulamada aan ku tagno safarada oo kala ah Ohio Ottawa mar walba sanadkii hal mar aan aadnaa Ottawa Ohio waa aadnaa alxamdulillah iyagana waa noo soo dhamaadeen sanadan baan rajaynaynaa insha Allah ciyaalkii iyagoo fiican sanadan iyagana waa noo yimaadeen anagana waa u tagnaa dhinacaas hadaan su'aashaas aan kaga baxo laakiin maanta waa gabagabadii ciyaarihii oo aan mar walba sanad walba aan qabano oo aan ugu talagalnay ciyaalka caruurta da'dooda ay ka bilaabato 9 jir ilaa 17 jir waxaana maanta guusha alxamdulillah rabbil caalamiin oo noo soo gabay ciyaalkana ee farax iyo wanaag iyo wada jecel iyo aan ku dhamaysan laakiin meeshii waxa ka maqan hadduu aan ku dari doonaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo cali muudey haddii aan eegno Ilamos wax badan bay qabteen runtii waxaa la oran karaa waa madaaliyaasha isboortiga gaar ahaan kubadda koleyga ubadka ayay meel walba geeyaan ku tababaraan waxyaabo badan bay qabtaan maxaad ka oran lahayd Ilamos waxay qabtaan iyo waxay yihiin bismillaahir rahmaanir rahiim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إله بقى مهضلة أو صورتي قلية معركتي إنا سوقنا ما برامج كانوا قبل ده الدان سؤال هذا كجوابه ألموس وحلاقة شيء كي كرماهن وحل برنامج لقصو كوبي كرورت ماهن معلم برونو معلم أحمدي إلهي غير هالسيئة معركتي المهم وإسكو تحلجين وقت بدن بيقليين dhalinyarada 9 jirka ilaa iyo 17 oo meel kasta ay geeyaan waxa loogu talagalay wax kala maahan waxa loogu talagalay ilmaha in isbartaan waxa loogu talagalay arrimaha bulshada banaanka ka jirta iyo wadanka aan ku noolnahay waxa ka jira waa ogtiin ma laga sheekeyn karo in waxa soo dhan maaragtay laga ilaaliyo ilmihina isbartaan horta barnaamijka ujeedadiisa intaas waa mustaqbalkan insha Allah waxaan rajay doonaa sida hadda ay ku socoto hadii Ilamos ku sii socoto insha Allah waana balaankooda in dhalinyaro Soomaaliyeed oo Soomaali Canadian ah in ay ka qayb galaan NBA haduu Ilaahay yiraahdo mustaqbalka sida hadda ay Soomaali uga qayb galayso meelaha kale oo calanka Soomaaliya uu ka suran yahay waxaan rajaynaynaa haduu Ilaahay yiraahdo mustaqbalka in dhalinyaro Soomaaliyeed oo NBA ah ay ka soo bixi doonaan waana كموقن دونا إن شاء الله ويكون حجران لأن يربضن وتالنت سجال جيرك إلا يتميت تضجر تاسنوا إلهي مهديس مركهر طلباتنا وجهد إجليين معلم بروني معلم أحمدي يدك هراء ولا شقين جري وحرب محمدو حديث عشان أنسيو علي مودي والدينتو ومهم وأنا لفظ برنامج كان وحاسة ترتوى والدينتو سوماليدو إننا فاهمين أما قرن سبورتي عين كانوا كلاه ubadka ay soo qaadiyaan macallimka ay ku tuurayaan meesha ay keenayaan ka gadaalna way ka tagaan meesha kale waxaan aragnaa waalidkii oo daba socda ubadkooda waxay mar walba yimaadaan meelaha ay ubadkooda ku ciyaarayaan kubadda cagta ama kubadda koleyga
kuwa Soomaalida laakiin waxaas way garan laayeen maxaad ku oran lahayd والله وسؤال مهم دور جيرنا أنا أذن وأكوّد هذا ندتك كلنا وأكوّد هذا ورت والدك وأبي هوي مركا المهم مركا اللي كينا أنت وحكوها بونت هاي أباها هوي هذا إن متكود ولا جوه سيبا أبيه إنه ولا جوه هوي ذي ولا في دبركي ما عرفتي قري مركا وحندي لها مسؤولية وين سجاج بقولكي بالسجاش أما بقولكي وبقول وحي سارنت هاي والدينت oo aabaha aabihii waa mas'uulka guriga marka waxaan ka codsan lahaa waalidiinta inaysan meesha daycare ka dhigin oo ilmaha inta keenaan oo hadhowda waqtiga loogu talagalay ay u yimaadaan ay ka qaadaan inaysan noqon ay noqoto markay ugu liidato inay yimaadeen furitaanka ciyaaraha markii la furaayo markay ciyaaraha officialka ay leeyihiin ama inta ha ku qabaano ama Ottawa ama meelaha kale markii la aadayo waalidka inay ka soo qayb galaan markii la xiraayana sidoo kale waxa arkaysaa community-da kale sida Portugiiska, Isbaanishka, Talyaaniga, Chinese-ka waalidiinta ayaa daba socda taa macnaheedu waxay ku keenaysaa macnaha caruurta naftirkooda moral support ayaa u noqonaysaa aabii hooyadii haday ag fadhiyaan sida uu ciyaaray ka daran uu ciyaaray mid kalena ma aragtay coachka isku ma keeni karaan inay ilmihiina fiiriyaan tababaraan wax u sheegaan iyo inay ogaadaan behavior-kooda sida uu yahay marka waxaan markoowaad mar labaad mar saddexaad ka codsanaya waalidiinta inay xil iska saaraan siiba odayaasha inay waqti geliyaan caruurtooda ayaan ka codsanaya waana aragteen mirahaas ooya kaligeed wax ma sameyn karta aaba kaligiisna wax ma sameyn karo marka waxaan ka codsanayaa waalidiinta in ay ka soo qayb galaan ciyaaraha ka dhacaya oo meel kasta ama basket ha ahaato ama soccer ha ahaato ama maaragtay orodada ciyaarahoo dhan inay ka soo qayb galaan ayaan rajaynayaa lana dhaafo wixii na soo burburiyay oo ah qabiilka iyo qurunka waxaan dadka ka codsanayaa Soomaaliyan nahay calankaas Soomaali oo shanta xidig ayaa qof kasta noo yaqaana birita marka meesha lagu arko laguma dhahayo alama tahay hebela tahay urur hebela tahay waxa lagu leeyahay waxa waaye wax meeshaas ku ciyaarayo waa Soomaali marka waxaan idin ka codsanayaa in arintaas wax laga bedelo wax laga qabto ninkas oo caruur haayeen waxaan ka codsanayaa in waalidiinta ay la fadhiistaan barnaamijkooda lagu daro wili aniga waxaan sii codsan lahaa cunuga aan waalidkiis imaanin ciyaarta finalka ama furitaanka ama markii la leeyahay ciyaaraha officialka in loo sheego la yiraahdo waalidka haduu kula soconin aniga ma ku ciyaarsiinay taas waxay keenaysaa dhiirigelin waalidka markay ka soo qaad mesela yara idin siinaya markay caruurta markay ay aadaan iskuulka biitsada markay leeyihiin warqada la soo siiyaa waalidka iyo iskuulka isma arkaan warqada la soo siinaya waxa la leeyahay maalin hebel pizza laga rabaa $10 laga rabaa iskuulku ma weydiin caruurtaan dhan waa aragtay maalinta pizzada maalinta ka horeysa iska dhaaf 1 week waxay ku weydiinayaan lacagta pizzada maraba embarrassment inay ugu sameeyso ayagana warqad saas amal inay sameeyaan ay yiraahdaan maalinta officialka ciyaartaas jirto waalidka inuu ku soo raaco ama aabaha ama hooyada hadaysan jirin wax hagaagaya malaha coaches kaliya wax ma qaban karaan waxa loo baahan yahay in la isku xirmo oo aqligii Soomaaliya jiray in laga baxo oo aad aragtaan aad ku dayataan community-da kale oo ka dhisan magaalada Toronto mar labaad mar saddexaad maxamed aad iyo aad u maasan tahay sababtoo ah habeenii maalin waxa u taagan tahay in Soomaalida event kasta ay qabto inaa ka qayb gasho nooc kasta oo ahaado waxaan kaloo u mahad celinayaa macallimiintii waxaan ka soo shaqeeyay wax sahlan ma ahan in ilmo la yar la tababaro oo aan wax lagu siinayn waqti la gelinayo family ay yihiin baawurkooda ay ku soo qaadayaan wax kasta ay u sameynayaan ayagana waxaan leeyahay jisadaas waxa gudi karo rabbiga qaadirka kaliya ayagana waxaan leeyahay meeshiina ka sii wada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan gartay macallin Bruno dabcan waalidka wax badan buu ka hadlay cali muday waxa looga baahnaa inay qabtaan idinkuna waxaad u baahan tihiin taageero waalidka kaliya ma ahan ganacsatada uga baahan tihiin organizationada ama community organizations waxa loo yaqaano inkastoo ay iska yaraadeen laftooda waxa looga baahan yahay inay wax la qabtaan oo dadka wax taageero siiyaan masaajidada iyo culamaa u diinka iyo meelaha kale Soomaalidu isugu timaado
xirfadleyda iyo dadka shaqaalaha ah dadkaasoo idil oo waalidku u yahay lafdhabar maxaad oran lahayd maxamed daahir waa ku salaamay sidaad maaragtay aad ka dhawaajisay waxa waaye waalidka sidaad sheegaysid waa wax laga codsado waa loo baahan yahay laakiin wax aan hadda weyn aan ka aragno ma jiraan ganacsatada maaragtay markaad aad u tagtid oo aad wax ka codsatid maaragtay inaad dhaqaale ahaan aad ka weydiisatid waxay meesha ay ku yiraahdeen ay ku dhahayaan qoladaasaa noo timid qoladaasaa horeysay qoladaas iyaga ayaa maaragtay ilaa hadda aan maaragtay focuskeen ayagaa saaran yihiin marka aniga wax kale aan dhihi karna male sidaas maaragtay ayaan kusoo noqonaynaa marka communitydina maaragtay sidaas uma aragno wax community hadda aan nala shaqeeyo ma jiraan laakiin waa rajaynaynaa in maaragtay inaan sanadka dambe aan rabno inaan ka codsano ee communityda aan la xiriirno iyo ganacsatada sidaan nogala hormarin inaan aan ku horumarno oo iyo maaragtay waalidiintii inaan ka codsano inaan sanadka dambe inay baleenkeena aan bedelno baleenka oo hadda aan ku socono waa inaan ka bedelnaa ay noqotaa maaragtay hadday wax ay dhaqaale aan ka helayno waa inay noqotaa wax hal mar aan dhaqaale ka heli karno oo sidaas ay wax noogu qabtaa ay qabanayso oo xagga uniformka inaan ku soo gadano ay maaragtay baabuurta maaragtay waxyaabo aan ku soo qaadayno waxyaabo badan ayay jiraan maaragtay waalidiinta inay horto khaasatan inay waalidiinta ay wax nala qabtaan waa loo baahan yahay haddaan nahay maaragtay bahdi ilaamus waa in maaragtay wax ay nala qabtaan waalidiinta haddaysan wax nala qabanin hawsheena sidaan rabno uma soconayso sidaasaa maxamed daar aan kuu sheegaa laakiin waxaan rajaynaynaa inaan wax maaragtay inay qayb weyn ka qaataan waalidiinta ganacsatada iyo communityga maxamed daar waxaan kuu sheegaa communitydaas way jiraan waa la arkay ciyaarahooda waa ka qayb galay waxaan arkaa community kasta qof kasta waalidkiisu caruurtiisu ula socdaa Portugiiska haddii noqoto Chineeska haddii noqoto Philippines aad baa waa la yaabaysaa Talyaaniga waxaa arkaysaa kuraastooda waa wataan caruurtooda way daba taagan yihiin markay dhammaatana sidaas ay caruurtooda ku wadanayaan laakiin anaga waalidiinteena waa meeshan ay noo keenaan meeshay garoonka ma soo qayb wax ka dhacay ma ogo waxaa dhici karo marmar caruurtii iyo macallinkii ay isqabsadaan wax kama qabaan wax kama ogo anigana waxaan sameynaa mataqaanaa waa garoonkaan ka saarnaa waalidkii markaas ayuu maaragtay leeyahay maxaa dhacay hadduu joogaan lahaa waxaan ma dhici lahayn aad baan maaragtay waxaan rajaynayaa waalidiinta inay qayb weyn nagala qaataan hawshaan adag aan hayno axmedey waalidiinta aad baa loola hadlay runtii waana muhiim waana ku wadaynaa aniguna waa la hadlaynaa idinkuna si weyn baad ula hadasheen waxaase la yidhi faanole fare kuma qodna maxamed daahir aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay horta marka xigo maanta oo dhan waxaan u maleeyaa labada qofood iga horeysa waxay ka hadleen waalidka alxamdulilah horta waalidka si fiican laakiin anigana xoogaa ayaan ku darsanaa insha allah haddaan usoo laabtay dhinaca waalidka waxaan u malaynaa intii aan TV ka hadla inaan mar walba aan u sheego oo aan dhaho waalidiinta please hanaga laga qayb qaataano arrimaha aan ku jirno waxaan waa iyaga iyo anaga hadday nolol shaqaynin ma suurtooweyso alxamdulilah waana wadnaa waana wadi doonaa insha allah hadduu ilaahay dhowr sano aan ku jirnay waalidiinta waxaan u sheegaa in caruurta ay nala joogaan ayna helbgareeyaan wax alaala sida hadda macallin Bruno uu sheegay cunug haddii aan isqabsano hadduu waalidkii joogo marqaati ayuu haystaa cunuga oo la dhahay ruuxasaas oo bis waa ku jeedi meeshan haddii laga ceeriine mar dambe ku soo noqonaysid hadduu cunuga waalidkiis arkay aniga aan noo jeedo ma sameeyna waxyaabaha inuu suubiyo oo rabe anagoo sii jeedno wax suubina wax ma suubinno leeyahay marka waalidiinta waxaan ka codsanaa mar walbo inay nahelbagareeyaan dhinaca dhaqaalaha waa muhiim waa iidan in oo waxa afiirisid waa $20 sii oo aan waa ka tagay iyo waxaas ma soconayso waxaa la rabaa inaan teamkii si fiican loo helbagareeyo maaliya lagada sanadkan cayaarihii oo aan qabi jirno home tournament ma qabana calaa dhaqaale awgeeda ayaan u qabi waynay sanadkan cayaarihii home tournament sana walba waa qaban jirnay sanadkan ma qabanin
waxaa noo saamixi waayey cayaarahaas dhaqaale darteeda awgeed dhaqaalaha dartiisa ayaanu saamixi waayey ma qabanin sanadkan ciyaalkiina waana weydiiyeen markii ciyaalkii wax kale ayaan ku basareen waxaan dhahnay hoostaa wixii naga soo galeen oo oto waan tagnay tiimo badan aan noo yimideen marka waxyaabo badan aan xoogaa yar ciyaalka aan ku sasabnay ma dhihi karna dhaqaala ma haysan iyo ciyaalka dhaqaalaha meesha laga keenay waxay kala socdaan male laakiin waalidiinta hadii nagu saacidi lahaayeen waxiina waa la soo bilahay iyagana hadii noola joogi lahaayeen cayaaraha furitaanka muhiim waa inay joogaan xiritaanka inay joogaan maanta waa maalinta xiritaanka insha Allah waxaan rajaynaynaa sanad dambe insaan aan ka bedelno cayaaraha dad badanna aan macallimiintii hore u joogtay laga yaabaa inuu macallin Daawud oo dadkii wax ka bilaabo oo yahay Alamos inuu yimaado haddii ay suurto hadoon imaadin hawsha waa sideeda dad kalena waa u kaashan doonaa caruurihii hore oo naga weynaado oo jaamacadaha dhigto oo 20 sano iyo 22 sano jiro inay noo yimaadeen in helba garaayaan iyagana xoogaa ay balan qaadeen taasna meesha ay ku jirtaa marka maxamed daahir dhinaca waalidka maalin walba in lagu celceliyo ma aha waalidiinta please insha Allah haduu ilaahay yira inay naga qayb qaataan waaye wadkan oo meesha lagu hayo oo waxyaabaha xun iyo diinta iyo cunuga waan la hadalna hadaa salaad dukaneenin oo aad fiicnaan manoo iimaanaysid waalidiintiisa hadoo dhiba waa tahay macallin Cismaan Bruno Ali Muudey iyo Axmedey Abuukar aad baad ugu mahadsantiin waqtiina qaaliga oo siiseen. Hi, my name is Dahar Abdul and this is Yusuf and this is Alban. And Ilamos was a good year to play in. It was fun. Well, I made a lot of friends and it was a good year and I hope it starts next year too. My name is Muhammad Abuukar. I have here sitting with me Yassine, Abuukar and Jibril. They all have been a part of the Ilamos family. We wish to come back next year with high hopes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Abdurrahim Mohammed. This program is a really good program for the youth. It brings everyone together. Everyone enjoys this environment. It's a good competitive battle. It's fun for us. Get your game up and stuff like that. It's a great program. Alamos all the way. My name is Mohammed Moomin. I'm the best basketball player in this gym and I'm the greatest person that Alamos ever seen. Assalamu alaikum. My name is Mahdi Mohammed. Alamos is a great place. I hope everybody comes here next year inshallah. And hi hoya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. My name is Ibrahim. We played a great season. I was having just 10 points. I'm good. It's a good day. Alamos! This is a Somali show on TV.